Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waxaan idin wadaagayaa geed aad u macaan oo bur farmaajo aan u bixiyo mushaari waa bahashaas aan sii dhigayo. Waa bur waxaan kusoo daray qaado sokor, burka caanaha liibita igu dhex jirto iyo mushaarida bakeeri intaasaan ka sameynaa. Caanahan kusoo shubay, caanaha waxaa igu jirta qaado liibita waa isku soo garaacaya si fiican iskugu garaaca caanaha iyo liibita. waxaan ku darsanayaa mushaaridii, waxaan ku darsanayaa qaadada sokorta ahayd iyo burkii oo isku dhex shubay. Calashaan xasaas u sameey meesha iyo qaadi weysay weelal inaan dhigo soo marka waa idiin fududeeya. Si fiican u garaaca sida canjeeladii aan aad iyo aad u garaaca. isku soo noqonaynaa say noqoto canjeeladaas camal aan usoo garaaca. maasha Allah saanay noqota 40 daqiiqo kadib way kacday. birtaawada dabka ii saaran way ii gaabsantaa. oo ku shubaya tartiib waa weyn maahan waa gaagaabkaas. maasha Allah si ku soo baxda arag. maasha Allah ma gedinayo waxba kale ma ku sameynayo ayadaa maxaa lahayn hoosna ka soo gudubinayso korna cajiinka ka baxa waxayna kor ku yeelanaysaa indho qurux sida canjeelada Itoobiyaanka. ka bacdi waxba ma gedinayo hore le uga fujina waa isla arkaynaa say noqoto. maasha Allah way soo gudubinaysaa hoos korna way ka soo buuxsaa. maxaa la dhahay cajiinkii indhiyaha soo buuxiyaan quruxan quraaca ka samaysan kartaa, qada ka samaysan kartaa, casha ka samaysan kartaa, casriya ka samaysan kartaa. wax ciidiyeysa malahan. maasha Allah ani casriya ahaan u samaysanahay shaaha gle u soo samaysana waa isku dhamaatay. ma gedinayo hore le ka fujinaa marka saxanka la saaraa. maasha Allah quruxan qurux lagama sheekeyn karo marka la soo diyaariyo. haddana 3 baan soo xistay tii kale labaada inta sooyaa oo aan sidii camal ugu soo shubtay qiyaas ahaan in iskula ka taaraba kulli. inta waxay ku jirta biyo waxaan ku soo shubaa bakeeri hafkiisa sokor waxaan rabaa dhow inaan korka uga darsado ayada laakiin waxaan ku soo sameynayaa ayada waa soo laalaaba farmaajada dhaxda ka soo gelina. ka bacdi farmaajada dheer u jira 2 xabaan ka dhigaa xabadii kadib waan isla soconaynaa sidee ku soo baxda saanan aan u laabaa jab farmaajaha ku jiro waa faraasan ku siisiina. ka bacdi saxankan geena maasha Allah xabad labaad inta saay haafkii hore soo qaatay waa dhex dhigay. ka bacdi saan la soo laaba fudeedan ku qof kasta oo samaysan kara nin wala naag wax iska fudud dhib malahan. adina waxaa ku bedelanaysaa waxyaabaha kale. maasha Allah saan ay noqotay marka waxaan rabaa inaan ku soo shubto sokortii oo ii dhalaalayso ama ba ii dhalaasho ma fahanti. soo marka waxaan rabaa inaan waatan sokortii tartiib aan korka ku soo dhaho. wax kasto aad isteeda ku darsan kartaa sida malabka ama waxyaabaha macaanka korka looga darsado laakiin aniga biyahan aan ku haystaa fahanti. sokortaan aan ku haystaa oo soo dhalaaliyay korkaas aan uga shubaa tartiib ma bisuu kara intaan sameynayo fahanti. 30 daqiiqo laaba ka soo wareegin aan ku waa la kala dafay fahanti. dadka dhawaan jecleen yar iyo weyn waa jilicsan maasha Allah hadii aad ka heshay asxaabtada la wadaag subscribe maasha Allah like ka saar ka baqaylin fahanti.